way jabeen nimankaasu dhiyuxuusho waxaa jooga maanta ciidamadeena xaqudirirka meesha la yiraahdo buurti hodan waxaa jooga ciidamadeena xaqudirirka ateenadii gooja cadde waxaa jooga ciidamadeena xaqudirirka maraagi waxaa jooga ciidamadeena xaqudirirka meeshii saaka ay dagaal ka qaadeen la oran jiray samakaabna waxaa jooga ciidamadeena xaqudirirka 6 goobood tiraba ama 7 goobood oo ay ku sinaayeen saaka oo ay dagaal ka soo qaadeen ayaa lagala wareegay halkan waa anigoo ah General Cabdidheere Dalmar Maxamuud oo loo yaqaan Cabdidheere oo kamida ciidamada ACC Khaatumo xaqudirirka halkan waxaan ku duubayaa clip yar maanta oo ay tahay taariikhdu 15 bisha May ama 16 bisha May saad ogtihiin baryaha kan waxa ka socday gobolka Sool dhibaatooyin fara badan oo ay geysanayaan nimanka qawaariista ee ka soo duulay Hargeysa iyo meesha la yiraahdo Berbera iyo Gabiley iyo taliska Muusabixi dhibaatooyinkaas oo in badan soo jiitamayay oo si walba xasuuq iyo guri la dumiyo iyo dhib kasta lahaa maanta ahayd 16 bisha weerar dhowr jawaab ay ku soo qaadeen ciidamada xaqudirirka fadhiya gobolka Sool hareerihiisa ama gobolka Sool ducihiisa ku dhowdhow iyo ciidamada galbeedka gobolka Sool ka wareegay Dhamasaar ilaa fadhiya meesha la yiraahdo Yeyle ilaa Gumeys ilaa meesha la yiraahdo Shululux dagaalkaas oo ka dhacay jab xun loogu geystay nimanka soo guula qawaariista oo hub iyo gaadiid ba lagala haray haddana xaaladdu ay marayso ciidankii galbeedka jiray lagu soo dhaweeyay meesha la yiraahdo samakaab la isku soo dhaadhacay kii gobolka joogayna laga qabsaday fadhiisimo badan oo halkan aan kala hadlayaa ay tahay xargaga buundada xargaga iyo xabaalihii iyo meeshii garoonkii wadada garoonku ay u leexan jirtay waxaan u sheegaynaa cid kasto macnaha daneynaysa hawshan ka socota gobolka Sool xaaladdu waxay maraysaa meesha noocaasa way jabeen nimankaasu dhiyuxuusho waxaa jooga maanta ciidamadeena xaqudirirka meesha la yiraahdo buurti hodan waxaa jooga ciidamadeena xaqudirirka ateenadii gooja cadde waxaa jooga ciidamadeena xaqudirirka maraagi waxaa jooga ciidamadeena xaqudirirka meeshii saaka ay dagaal ka qaadeen la oran jiray samakaabna waxaa jooga ciidamadeena xaqudirirka 6 goobood tiraba ama 7 goobood oo ay ku sinaayeen saaka oo ay dagaal ka soo qaadeen ayaa lagala wareegay insha Allah asaanu jecel lahay waana sii wadi doonaa anagu awal iyaga adeerna soo weerarada weerarkii gartareerada waday laakiin haddeer laga bilaabo waanu sii wadi doonaa ay sababtu tahay inaanu sii wadi doonana waxa inay cadeyn doonta dagaalka gobolka Sool 5 bilood ayuu soconayay iyo waliba dheeraad 5 bilood gobolka Sool baan ku sinaa iyo jiidmaha dagaalka maanta ka hor aanu soo taagay shaashadaha ama ka soo muuqday ama soo taagay hore looma arag mana dhicin marka waxa inay cadeynaysaa inaanu sii wadi doono oo aanu ilaa iyo aanu gaari doono danta aanu leenahay ama dhulka aanu xuduudda aanu leenahay uu sii socon doono dagaalka nin walba ha ku tala galo waxaan u sheegayaa ciidamada xaqudirirka ACC ama bari ha ka yimaadeen ama gobolka Sool ha joogeen ama Buuhoodle ha ka yimaadeen ama Ceergaaba ha ka yimaadeen loo diyaar garoobo dagaal dhaba oo la iskaga xoreeyo nimanka argagixisada ee gobolka Sool iyo guryaheena inagu haysta nin walba hadaad fadhideen ka kac fadhiga hadaad jiifteena jiifka ka kac hal diyaar garoobo waa inoo dagaal iyo nin iyo tamartiisa waxaan malaynayaa wax dambe oo la isku reebanaya ma jirto wax dambe oo macnaha hadhayna ma jirto gobolka Sool intiisa badnayd weyn xoreynay waynu kala wareegnay meelaha yaryar ee nagu soo hadhayna muddo dheer inagu si gaari maayaan baan filayaa oo inuu la wareegi doonaa insha Allah waayo inagu daalibiin ma nihin aynu waxaanu nahay dadkii gobolkan iyo deegaankan u dhashay ee sheeganaya mulkiilayaashii dalka lahaa oo lagu soo duulay oo niman ayna waxaanu ka haysanaa jirin inagu soo duuleen oo sheeganaya maamulka Soomaaliland ama maamulka Muusabixi dadka adduunka joogana waxaan u malaynayaa cid qof qasbi kartaa ma jirto annaga ka tirsanayn ciidamada Soomaaliland oo markii hore ka shaqeyn jirnay markaanu aragnay dulmiga lagu hayo dadka iyaga ama ay noo gurgursami weeday Muusabixi iyo ninka ilmaadeerka iyo ciidamada u dhiibtay Nuux Taani la yiraahdo say loo dhaqmayaan ummadda daarood ama ummadda hartiyeed ee ciidamada kamida ama dulmiga dadka iyaga ku hayaan
baanu ka dhiidhiino ka gilgilanay waanu iskaga tagnay waxaanu u shaqaynaynaa ummadayada iyo dadkayaga aan la dhimanaynaa garab taaganahay ilaa iyo maanta iyo maalintii haddana la dhiman doonaa marka waxaanu idin sheegaynaa dee annagu sidii ummadii kale lahayd naga baxa ama naga taga anigu saakayni odhan maayo naga baxa ama naga taga waxaan idin leeyahay nin iyo awoodii iyo nin iyo tamartii nin iyo awoodii nin iyo tamartii waxaad haysaan la imaada anana waxaan haynoon la imaada taliya waxay sheegeen oo baraha bulshada ay soo dhigayeen saaka in ay naga qabsadeen gaadiid bal gaadiidka ka warbixi baraha bulshada ay ku faafinayeen waxba kama jiraan wax gaadiid oo lanaga qabsaday saaka ma jiraan waa dhaqan ama caado iyagu ay leeyihiin baraha bulshada iyo social media markay arkeen in lagaga dheereeyay baraha bulshada ama social media adduunweynaha iyo caalamka waxay isku dayeen inay wax been abuura dadka ku qanciyaan ama shacabkooda iyo maatadooda iyo ummadda la xasuuqayo musabix ku adeeganaya caruurta lagu qanciyo sawirro qaliyo ama sawirro hore inta loo soo dhigo ama baabuur cadcad la yiraahdo waxaanu qabsanay aag